ugu dambeyntiina bal hadda aynu eegno waddanka Faransiiska ay deriska yihiin Talyaaniga 34 qof baa xabsiga loo taxaabay 34 qof ee Talyaaniga ah ee lagu qabqabtay waddankaasi gaar ahaan magaalada Palermo ayaa waxa loo haystaa farsamo iyadoo kale aan hore loo arag farsamadan ayaa raggaasi waxa ay ku heleen baa la yiri malaayiin iyo malaayiin dollar muddo sanado fara badan raggan ayaa waxa ay sameyn jireen arrimo lafjab markaan leeyahay waa tii runta ahayd markan waxa ay soo urursan jireen dadka maskaxda ay wax uga dhiman yihiin ama dadka khamriga iyo maandooriyaasha kale ay dishoodeen ee iyagu aan hoyga lahayn ee jidadka u hoyda ama dadka kale ee siyaabaha kala duwan ee kala u dayacan dabadeedna intay guri geeyaan baa wax li ama luga ay ka jajabin jireen ama gacmaha dabadeedna inta ay gaari saaraan ayaa waxay ka dhigi jireen baa la yiri meelaha ka midka magaaladaasi ee kamaraduhu aanay ku xidhnayn in shil uu ka dhacay shilkaas dabadeedna marka laga dhigo in laba gaari ay jeedaan oo kala tusaale ahaan ayaa dabadeedna waxa lagu dalban jiray lacag fara badan oo xagga caymiska dabadeedna lacagahaasi ayaa waxa la yiri wax faraguudkooda ama aad iyo aad u yar ayaa ka soo gaari jirtay dadkaasi ama xanuunsanaya ama maandooriyaasha qabatimay ee markaasi lafahooda la jabin jiray dadkan haddaba la soo qabqabtay ayaa waxa ku jira baa leeyahay iyaba waa arrin la yaab leh dad xirfad leh waa dadkii sharciga lagu aaminay qaarkood oo garyaqaan ay ku jiraan qaarkood dhaqaatiir bay ahaayeen dabadeedna nimankan dadka masaakiinta lafahooda jabin jiray ayaa waxay wada shaqeyn jireen garyaqaanada iyo ragga dhaqaatiirta oo iyagu muraadkooda u meel marin jiray oo oran jiray shilkaasi uu dhacay dadna halkaas uu ka dhacay dabadeedna qofkaas wax ku noqday ama dadkaas wax ku noqday sanadkii waxa la sheegay lacag ilaa 2 milyan oo dollar gaaraysa ama ka badan in ay nimanka budcadii falalka saasa ka heli jireen bilayska hadaba 34 kiiba xabsiga u taxaabay waxaana la rajaynayaa imika inay mudan doonaan xabsi dheer iyadoo dadkii ay nimankaasi dhibaatada xoog gale u geysteen bal hadda baaritaan imika lagu samaynayo lagu wado tirahaan intay ahaayeen iyo khasaaraha soo gaadhay iyo dadkaasi sidii wax loola qaban karo